deegaanka Ceeldoon oo duleedka ku yaala magaalada Baydhabo maalmihii ugu dambeeyay iyo muddooyinkan dambaba uu ka soconaya abaabulka ugu xooganaa ee halkaas ay ka wadeen ciidamada saraakiisha iyo madaxda ka amar qaata Cabdicasiis Xasan Maxamed Leftigreen maamulkii hore ee sida xoogga ah dirqiga looga saaray gudaha magaalada Baydhabo ayaa waxaa halkaasi soo gaaray taliyihii ciidanka asluubta dowladda federaalka ee Soomaaliya taliye Mahad Cabdiraxmaan Shub oo muddooyinka ugu dambeeya ku sugnaa qaybo ka mid ah gobolka Gedo sida xogta kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan kusoo dhawaada barnaamij xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay dhaawac iyo dhimasho ka dhashay qasaare xoogan oo soo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka Laftagareen oo dhaawac culus kala kulmay taliye Shub oo gaaray furimaha dagaalka ee ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo isagoo u qudbadayn doona maanta ciidamada kala duwan ee taabacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen qodobada iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa barnaamijka xulashada wararka inta badan aad ka daawataan Wama TV fadlan daawada hataa ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada ku soo biir channelkan subscribe noo saar muuqaalka la garay oo share garay aan ku bilownay dagaal xoogan ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay halkaasi waxa isku dhacay ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo ciidanka dowladda wuxuuna dagaalku ka dhacay deegaanka Maayafulka oo ah deegaan aad ugu dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa la sheegayaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ka baxay magaalada Baydhabo inay halkaasi ay isku food saareen ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen labada dhinac ayaa la sheegayaa in qasaare xoogan uu soo kala gaaray hase ahaatee ilaa iyo hadda lama soo bandhigin tirada rasmiga ah ee qolo walba kaga dhimatay ama kaga dhaawacantay dagaalka u dhaxeeya ciidamada Laftagareen iyo sidoo kale ciidanka dowladda sidoo kale isagana waxaa halkaasi gaaray oo duleedka magaalada Baydhabo maanta jooga oo u qudbadaynaya ciidamada kala duwan ee Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ninka lagu magacaabo taliye Shub oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Luuq ee gobolka Gedo hase ahaatee waxaa la sheegayaa in shalay gelinkii dambe uu iska xaadiriyay fariismaha ciidamada koonfur galbeed ee dib u xoreynta koonfur galbeed Soomaaliya oo uu ku sugan yahay halkaasi oo kulamo kala duwan uu kula leeyahay saraakiisha iyo waliba taliyayaasha ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen taliyayaasha ayaa waxa uu ku amray in sida ugu dhaqsaha badan gacanta lagu dhigo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay aadan madoobana nolol iyo geeri mid lagu keeno tallaabadani waa tallaabo cusub oo hore aysan u qaadin ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen in raggooda haldoorka ahaa iyo waliba siyaasiyiinta oo ugu horeeyo Laftagareen iyo waliba taliye Shub inay tagaan furimaha dagaalka waa tallaabo cusub oo aysan hore u qaadin tan iyo intii ay ku jireen halganka dib u xoreynta koonfur galbeed Soomaaliya hase ahaatee taliye Shub ayaa markan waxaa la sheegayaa in uu doonayo inuu shaxda dagaalka uu wax ka bedelo sida ugu dhaqsaha badanna uu gacanta ugu dhigo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyadoo maalmihii la soo dhaafayna ciidamada Laftagareen loo qaybiyay mushahar iyo waliba saad tiro badan iyo sidoo kale agab military oo cusubna la gaarsiiyay arrimahan oo dhan waxa aan ka wareystay Cabdi Jamaal oo haya wararkii ugu dambeeyay ee koonfur galbeed Soomaaliya qaasatan magaalada Baydhabo Cabdi Jamaal soo dhawow bal noo waran wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Baydhabo waa sidee xaaladda muxuu yahay dagaalka ka dhacay deegaanka Maayafulka deegaanka Ceeldoon oo duleedka ku yaala magaalada Baydhabo maalmihii ugu dambeeyay iyo muddooyinkan dambaba uu ka soconaya abaabulka ugu xooganaa ee halkaas ay ka wadeen ciidamada saraakiisha iyo madaxda ka amar qaata Cabdicasiis Xasan Maxamed Leftigreen maamulkii hore ee sida xoogga ah dirqiga looga saaray gudaha magaalada Baydhabo ayaa waxaa halkaasi soo gaaray taliyihii ciidanka asluubta dowladda federaalka ee Soomaaliya taliye Mahad Cabdiraxmaan Shub oo muddooyinka ugu dambeeya ku sugnaa qaybo ka mid ah gobolka Gedo sida xogta dad maangaliha ay xaqiijiyeen taliye Shub wuxuu ku hoyanayaa halka lagu magacaabo Ceeldoon wuxuuna halkaasi kula hadli doonaa dhammaan askarta iyo qaybaha kala duwan ee halkaasi ku sugan maalinta bariya isagoo u sheegi doona tallaabada xigta qorshaha qaybintii mushaarka aad ogeed oo loo sheegay ciidanku inay heeganka ugu dambeeyay galaan galabtay ilaa maanta dagaal ayaa ka dhacay halka lagu magacaamayo Fulka ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda ayaa isku dayay inay howlgal adag ay fuliyaan oo ay ka hortagaan taliye Shub iyo ciidamada culus oo hogaaminayay ee ku soo wajahnaa halka lagu magacaabo Ceeldoon arrintaasna waa laga hor yimid oo ciidanka Laftagareen ayaa jilibka u aasay saacado ayuu dagaal culus halkaasi ka socday dhimasho iyo dhaawac ayaa dhinacyada soo kala gaartay
laakiin ilaa iyo hadda saraakiishu way ka gaabsanayaan inay si dhaba warbaahinta ula wadaagaan. waa maxay sababta uu taliye shub usoo safray oo xilligan socdaalkiisa kusoo beegay, maxaa ka ognahay? taliye shub saad og tahay waa taliye ciidankii asluubta isagoo xilka haya ayaa leftigren daaqada laga tuuray oo ahaa wiilkiisa oo gabadhiisa qabay, kadibna xilkii markii laga qaaday nairobi ayay isku warsadeen. kolley taliyaha qabowgii nairobi ayay isxamili waayeen, wuxuuna door biday inuu dib ugu soo laabto magaalada baydhabo iyo dagaalkeediiyo dhaxanteeda. waxaana maalmihii ugu dambeeyaba abaabul xoogan uu ka waday gobolka gado qaybo kamida sida degmooyinka luuq, doolow iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo yurkud. waxaana halkaasi abaabulkiisa uu ahaa mid aada u xoogan oo la doonayo guud ahaanba in shaqo adag oo ka qabto deegaanka, taasoo muujinaysa sidoo uu qorsheeyey inuu halkaasi uu ka saaro sheekh aadan madoobe. waxayna arrintan imaanaysaa xilli sheekh aadan madoobena uu isaga cararay baydhabo, taliye shubna uu kulaalayo. bal dagaalka dhacay iyo khasaaraha ka dhashay iyo dagaalka qaabku u dhacay. dagaalkaas axmedow faahfaahintii ilaa hadda waan ku daba jirnaa. waxaa naloo sheegay inuu jiro khasaaro kooban oo dagaalkaasi ka dhacay. ciidamada dowladda ayaa isku dayey koonfur galbeed ee ku sugan oo gudaha magaalada baydhabo inay khalqal ku furaan ciidamada ceeldoon ku sugan. saad og tahay maayafuulku wuxuu udhexeeyaa ceeldoon iyo sidoo kale magaalada baydhabo. arrintaasna waxay aada u kicisay deegaanka xaaladii ka jirtay. imaanshaha markay ogaadeen ciidankiina u suurta galay taliye mahad shubna way soo kala wareegeen oo gadaal ayay usoo gurteen. xaaladana waxay u muuqataa marka inay tahay colaad mahurto. koonfur galbeedna waxay sii gelaysaa xaalad adag oo xasaasiya oo u baahan in loo istaago. xilliga kan xaaladii ugu adkeed ee dhinaca siyaasadda ayaa ka taagan gudaha magaalada baydhabo. beelo dhowra ay kamid tahay elay iyo sidoo kale beelo kale ayaa guud ahaanba ka hor yimid wasiiradii oo magacaabay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. waxayna sheegeen inaysan u qalmin, ayna tahay magacaabista wasiirada loo magacaabay kuwo dulleysi ah oo u muuqda inaan aysan mansabkii ay lahaayeen iyo darajadii ay filaayeen toona aysa helin. xaaladda baydhabana xaalkeedu sidaas ay u cakiran yahay. dadka qaar hadda ayay isu diyaarinayaan inay raadsaan bal wadooyinka ugu fudud ee suurtagal ay tahay inay kaga wareegsadaan meelaha furimaha ee had iyo jeerale ciidamadu ay duulaankoodu ka bilaabo karo. xoogaha ugu dambeeyey ee deegaankana intaas ayay noo xaqiijinayaan. imaanshaha taliye shub oo u imaaday furimaha dagaalka ee ciidanka koonfur galbeed ee dib u xoreynta iyo weliba ambabixidda uu sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ka ambabaxay magaalada baydhabo, maxaa isku soo beegay? isku beegay waxay tahay kolley waa og yahay taliye shub iyo marka laga hadlaya arrimaha ciidanka iyo howlgallo la sameynayo sheekh aadan madoobe aad bay ugu kala aqoon badan yihiin. inkastoo marka laga hadlayo xilliyada hore jamhadaha ay yihiin rag dhammaantood aqoonta jamhadaha leh, laakiin waxaad moodaa in ay waktigu isku beegay, laakiin ay aada looga warqabin taliye shub inuu imaanayo ceeldoon. taliye shub xog hore lagama hayn inuu halkaas imaanayo. galabtay gelin dambe ayaa la ogaaday sida xogta baydhabo aan ka helay iyo xaqiijisay inuu halkaas soo gaaray oo uu la hadli doono warbaahinta. kolley halkaas ayaana laga arki doonaa ujeedka ugu weyn oo halkaas u yimid. maalmihii ugu dambeeyey war la sheegayaa jiray oo ahaa inuu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo leftigren oo hadda abaabul xoogan oo dowladda ku garab siinayo oo waday. laakiin arrintaas waxay u muuqataa inay meesha ka baxday oo aysan waxba ka jirin, oo wiil iyo aabihiis ay yihiin. howlgalkuna hal jaha u jeedo. baydhabana caawa waxay kulaalaysaa cabsi, walwal iyo walahoon. dadkuna aad ayay cabsi weyn uga qabaan. maxaan dhihi karnaa hadda xaalka koonfur galbeed wuu noqonayaa? xaalka koonfur galbeed wuxuu noqonayaa dabcan siday uga tashtaan dadka reer koonfur galbeed, sidii masiirkooda ay u gartaan inay ay wax uga qabtaan, sidii ay u gartaan inay dantooda ku jirto. laakiin sida muuqata waxaad moodaa weli inaysan jirin tala iyo tusaalo ay ku doonayaan inay deegaanka ku badbaadiyaan. weli ma jirto isfaham ay wax ku meel marinayaan. weli ma jirto xaalad arrintaasi la doonayo in lagu bedelo oo deegaanka nabadiisa horumarkiisa looga shaqeeyo. waase sugaynaa maalmaha soo socdaysay wax isku bedelaan. sidee baa loo xallin karaa arrinta koonfur galbeed? maxaa xal noqon kara? labada dhinac sidee la isugu keeni karaa oo loo wada hadalsiin karaa? xabadda dhacaysa sidee ayaan ku joojin karnaa? fadlan wixii aragtidaada nagula wadaag qaybta commentiga. barnaamijka like gare oo share gare si uu dad badan u gaaro. mahadsanidin daawadayaal. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii xulashada wararka. waxaa idinla socodsiinaya anigo axmed cabdi maxamed axmed toronto. intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid waxayd ka tegaynaa sidaa iyo nabadgelya. bye bye.